ciyaartoyda qaarkood koobab ayay qaadaan, balse waxaa kaloo jira qaar kale oo qulubta shacabka taariikh ku reeba. taageerayaasha qarnigiisa ma aysan kala jeclayn guul iyo guuldarro. waxaa keliya ka badnayd wacdarada Maradona inay indhahooda ku arkaan. Maradona kuma dhalan hanti, balse wuxuu ku dhashay meel riyooyinku ay ku dhintaan. kubadda cagtana uma aysan ahayn ciyaar oo keliya, waxay u ahayd jidka keliya uu ku badbaadayo. markii uu Napoli yimid ma uusan noqon xidig, wuxuu noqday rajadii dadkii la iloobay. dadka koonfurta Talyaaniga wuxuu ahaa halkii nin ee ka hortagay nidaamkii dhisnaa ee u diidanaa in kooxaha koonfurta Itaaliya ay ku guulaystaan Serie A-da. asagaana ahaa sababta koox aan weligeed horyaal qaadin ay koobo badan daldashaan. ma jiro ciyaaryahan isku darsaday gambis, farsamo, caawin gooleed iyo inuu gool dhaliyo waxaan ka ahayn Maradona. kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii ma uusan ku guulaysan World Cup-kii ee wuxuu garbiisa ku qaaday masaakiintii Argentina, isagoona fariintiisu ay ahayd hal lug bidix, hal qalbi, hal qaran. wuxuuna dhiirigeliye u noqday jiilkii ka dambeeyey, iyadoona saamayntiisu ay sababtay inuu Messi u gambiyo sida Maradona, inuu Ronaldinho farsamada u adeegsado sidii Maradona. xitaa Sergio Ramos ayaa kaga dayday dagaalka iyo qartaatada. xaqiiqdana waxay tahay Maradona keliya ma ahayn goodka dhabta ah ee kubadda cagta, wuxuu ahaa nin masaakiinta u dooda sida Falastiin oo kale, kana hor yimaada kuwa quwadda isbiday sida Maraykanka. maadaama uu Maradona haddii goorba uu ahaa nin ka soo horjeeda qaabka reer galbeedku ay wax u wadaan, ay si propaganda ahaana ku dileen magaciisa, taasaana sababtay in Maradona aan maanta loo qirin inuu yahay goodka kubadda cagta. balse cid walba kubaddiisa daawatay waxay ku qiraysaa in Maradona uu ahaa ninka ugu xirfadda badan ee kubadda adag soo maray.
Los americanos me daban un premio y me daban un premio en Cuba. Dije, americanos, quédense con el premio, yo me voy a recibirlo a Cuba. Entertainment, truth takes flight.